بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدريال يمروين دعالة أدونك ميل والبو أدك جوكتان كسو دوادة ورباهنتي نيكو بهودي Southern Media Corporation ومرول بادكيشان وررك حقيقوين كسياسة اسديدن يكو إسوغل سنخصانة إيجيس كأفريكا يمد عالم كبا حالي طولي فيلا صوماليا لغا مسيحانين سياسة ميلحون بيمريسي شانتا قاردود inta danaynaysa siyaasadda Soomaaliya maantay ee cirka isku sii shareertay sirihii iyo wixii jiray ayaan idin la wadaagi doonaa rabbul caalamiinka uu na ogeysiiyay ilaahay isaga ku mahadsan bacdallahi waxa ku mahadsan sirdoonada kala duwan ee warbaahinta Southern Media Corporation wararka macni u soo kala shuba waxna aan lagu darin waxna aan laga jarin qodobada haddaan sii horo galo horta waxaan ku hormarayaa degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose Mayland waxaa lagu dilay 4 sarkaal ayaa lagu dilay xalay saraakiishaasi waxay u shaqeynayeen nabad sugidda state-ka Mayland waxayna ka soo jeedaan deegaanka magacyadooda haddaan ku kala sheego taliye Anwar Ibrahim waxa weeye degmada afgooye ayaa lagu dilay taliye Anwar Ibrahim waa taliye ku-xigeen ama sarkaal xigeen isaguna lagu magacaabo Khalid Muhidiin Waraabe isagana waxa weeye waa lagu dilay meesha waxa kale oo meeshaasi lagu dilay Dable Cabdiraxmaan isagana waa lagu dilay waxa kale oo lagu dilay Dable kale isagana meeshaasi waa lagu khaarajiyay marka yaa dilay weeye waxa dilay rag damul jadiid ay u soo direen meeshaasi iyada tani waxay qayb ka tahay ugaarsiga iyo siibidda iyo baabi'inta dadka deegaanka u dhashay ee daacadda u ah deegaankooda inay difaacdaan marka qodobkaas isaga waxa weeye waa fahmi kartaan baan u maleynayaa in damul jadiid hadda baydhabo ay wax ku dilaan sidoo kale degmada xudur inay farageliyeen dadka ay isku direen waxaas oo dhan waad ogtihiin oo mar raba hadda inaan sharaxaad idinka siiyo maxaa dhacay madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud 7 wasaaradood oo ka tirsan wasaaradaha xukuumadda federaalka Soomaaliyeed waxa uu ku amray budgetkooda in isaga toos loogu soo leexiyo si budgetka lacagahaasi wasaaradaha uu ugu isticmaali karo hirgelinta qorshayaashiisi ku aadan in markayse ciidamada uu ku hawlgaliyo ku doonayo inuu dalka ku qabsado madaxweynaha Soomaaliya ayaa 7 wasaaradood budgetkooda wuxuu doonayaa inuu u isticmaalo ciidamada abaabulan ee markayse macnaheedu hadda uu doonayo in uu ku qabsado deegaano ka tirsan gobolada Soomaaliya haddaan u soo noqono markayse madaxweynaha ayaa waxa uu lacag ka sugayaa bishan 19keeda ee hadda October aan ku jirno oo maanta ay tahay 13 lacag wuxuu ka sugayaa wadamada kala Iran Iraq iyo Masar lacagahaasi marka ay soo gaadho waxa kala qaybsan doona Xasan Sheekh Maxamuud iyo Asayas Afwarqi ayaa kala qaybsanaya waxaana loo isticmaali doonaa hawlgallada talisyada 34 talis ee markayse Soomaaliya laga hirgelinayo oo shaqadaasina ay wadaan saraakiisha ay ugu horeeyaan Eritreanka iyo Masaarida marka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wasaaradahaasi lacagahoodana wuxuu u isticmaali doonaa hawlgallada saddexdaasi wadanna bishan 19keeda ayaa laga rajaynayaa lacaga inay soo gaarsiiyaan haddaan u noqono taliska Belayska Federaalka Soomaaliyeed wuxuu diyaariyay ciidamo Belaysa waa taliyaha Belayska Asad Diyaano iyo atbaacdiisu waxay diyaariyeen ciidamo Belaysa kuwaas oo lagu dhex dari doono maalmaha soo aadan ciidamada xoogga Soomaaliya gaar ahaan qoliyaha loo yaqaan ilaalo qaran ayaa laga mid yeeli doonaa
oo lagu dari doonaa. hawshu waa birmad, waa dagaal, waa dhaqaaq waay. wararka waan kuu soo kookoobi doonaa haddii ilaahay uu ka raali noqdo si waqti badan aanan kaaga dhuminin. lafta gareen madaxweynaha dowladda Maryland ninka la yiraahdo Guudlaawe madaxweynaha Hirshabelle, Qoorqoor madaxweynaha baarkayse Galmudug State, saddexdaasi saami qaybsi siyaasadeed oo xilal iyo isugu jira, yacni mashaariic caqliga bani aadamka aan ogolayn ma loo fulin doonaa ama looma fulin doono ayaa madaxa loo geliyey. isla markaasna waxaa laga dhameeyey saacadihii ugu dambeeyey haddii xasan sheekh maxamuud doorashada qofka iyo codka ay u shaqayn kari weydo oo cadaadiska macnihii ku tirabato oo ka tanbadiyo in ay maarkayse u tanaasulaan. haddii doorasho dadban xasan uu aado in iyagu ay tanaasulaan oo mashaariicdaasi ganacsiyada waalan iyo xilalka macnihii iyo weliba xukuumadda hadda golaha wasiirada lasoo dhisi doono in ay saamigooda kaalin libaxle laga siiyo ay ka qaataan, isla markaasna ay isi soo dhisaan maadaama mashaariic caqligaaga uu diidaya la siiyey ay isku soo dhisi karaan, xitaa madaxweynaha Soomaaliya mustaqbalka usoo tartami karaan sida loo sheegay. marka haddii doorasho dadban aan la aadin ma arkayse iyagu qof iyo cod ayay hadda campaign ugu jiraan oo xasan sheekh maxamuud ayay ma arkayse ku raacsan yihiin in sidaan ay isaga joogaan, doorasho dadban aan la qabanin. ma arkayse macnihii tiimka qaanada damul jadiid UBD ayay ku xaroodeen. kaliya feermada kaliya dhiman, laakiin Abdicasiis lafta gareen iyo Qoorqoor iyo Guudlaawe waxay go'aan ku gaareen mashaariicdaasi mar haddii la tusay in yacni haddii xasan cadaadis baa ku socda hadda wadar ogol baa laga rabaa doorasho dadban hadday ku timaado xasan in ay iyagu u tanaasulaan oo Dhuusamareeb iyo Baydhabo iyo Jowhar inay ka tanaasulaan mashaariicdaasi iyo xilalkaasi rag ay dhisteen dowladda mulkiile ay ka noqdaan qayb ka mid ah saamigooda in ay ku gataan kuraastooda. qodobkaasi waa kaas, waa lafta gareen Guudlaawe iyo Qoorqoor. haddaan u noqonno wararka waan ku macnii kala dhigdhigayaa. madaxweynaha Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo xalay villa Soomaaliya aan laga seexanin, hoteelada siyaasiyiintana aanay seexanin, wuxuu saacadihii ugu dambeeyey qadka telefoonka uu kula hadlay wasiirka arrimaha dibadda dalka Iiraan. baasha Iiraan bay naga riday markaan soo uma jeedid. hadda ka hor waxaan kuu sheegi jiray war xasan sheekh maxamuud iyo garabka shabaab heshiiska la ah xasan iyo xuutiyiinta way heshiiyeen, sidaasaan kuu sheegay, laakiin waad iga rumaysan weyse. xuuti haddaa aragtidna Iiraan waad aragtay, Iiraan haddaad aragtana Russia waad aragtay, Russia haddaa aragtid Shiina waad aragtay, Shiina haddaa aragtay Kenya waa aragtay. marka intaas ilaa fahamtid isku day. walaalbaa wuxuu leeyahay warsame afgooye waxaa lagu leeyahay askar deegaanka. muuqaalka markaan soo galay baama ku bilaabay 4 sarkaal oo deegaanka in la dilay oo nabad sugidda madaxweyne lafta gareen dowladdiisii ah, laakiin lafta gareen hadal ma ka haysaan. midda kale raxweynay idinku cabaadka joojiya nimayo horaan haddaan wax idinkugu sheegnay ma arkayse macnihii marka arinta macnihii aad aragtaan laxda ma arkayse cirka ma aragta ilaa iyo shalalka la dhigo iska dhaafano horaan macnihii still water run deep baa la yidhahdaa. biyo intaysan ku soo gaarin ayaa la iska moosaa. macnihii intaasi markaan idiin qaylinaynay nin waalan baa noo arkayseen, qaarkiin qabyaalad baa noo arkayseen. macnihii lafta gareen baa difaacaysaa ku qabiila qaara iska aaminsanaa iyagoo sooyaalka aan eegin roobow inaan difaaci jirnay iyo madooba luunow. marka raxweynay idinku macnihii lugiin hoostooda maad aragtaan mar walba. macnihii waxa markay soo socdaan baa la fiiriyaa. ilaahayna qur-aankana waa taqaanaan, ilaahayna wuxuu ammaanay dadka wax cabira mufakariintu macnihii ammaanay. ilaahay aad buu u ammaanay mufakarka.
macnaheedu adinku dad fakara inaad noqotaan maxaa idin diiday waaqacaad u jeedaan wixii la idinku dhigay sooyaalka macnaheedu isbaarooyinka deegaanadii la dhiganayo ma arkaysa macnaheedu cunsuriyada la idinku hay haddana saas ay tahay wixii marka lagu sheega aad weelayn weydid sheegid kaliya ma weelayn waay marka aad weelayn weydid marka lagu dilo bug lagu siiyo xalay afgooydada lagu dilay ma ogtahay aad leedahay saraakiil lagu dilay goormeen ku sheegay daraadaan ku dhaay war waxaan ku dhaay ma arkaysa saraakiisha iyo nabadoonnada malaaqiyada 6 gobol meel walba lagu ugaarsan doonaa waa qorshe la dajiyay baan ku dhahay intaas hadaadan wax ku qaadanaynin walaalow maxaan ku qabtaa aniga sheegis kaliya leeyahay way madaxweynaha wadanka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu qadka telefoonka uu kula hadlay wasiirka arrimaha dibadda wadanka Iran iyo ra'iiska dalka Ciraaq ayuu saacadii ugu dambeeyay qadka telefoonka uu kula hadlay wuxuuna u sheegay qorshihiisi 2026 iyo 2030 already Xasan qorshihiisi waad aragtaa wuxuu kala sheekaystay Iran iyo Ciraaq Ciraaqna hadda waxaa saameyn ku leh shiicada Iran waxay kaleeto uu u sheegay in la dhisaayo urur ay dhisanayaan Iran iyo Ciraaq iyo Soomaaliya urur macnihi jaamacadda carabta ah oo cusub inay dhisayaan oo iyagu ay dhisanayaan marka bariga dhexe nafsadiisa ayaa isbedel lagu sameynaya markaad u fiirsatid sida ay wax u socdaan marka madaxweynaha wasiirka arrimaha dibadda wadanka Iran iyo ra'iiska wadanka Ciraaq ayuu xalay toolay ama saacadii ugu dambeeyay telefoon uu kala hadlay waxaana wadamadaasi uu ka sugayaa saan kuugu sheegay barnaamijkaygii bilowgiisi 19kan lacago ay u soo diraan waa Ciraaq Iran iyo Masar waxaana lacagtaasi Xasan uu rabaa in uu u isticmaalo hawlgalka military uu doonayo in uu ilaa iyo lowyacda ku qabsado way qodobkaas isaga waanu ka gudubnay waxaan u gudbaynaa ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed Xamse Cabdi Barre oo isaguna xaaladda ay ku xuntahay hadda iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka federaalka Soomaaliyeed Saalax oo isaguna xaaladda ay ku xuntahay waa ogaadeen iyo Isaaq oo labadoodaba macnaheedu hadha xaalkooda uu yahay Saalaxna ma arkayse macnaheedu Cabdi Xaashi uu ku dhagan yahay oo Xamse Cabdi Barrana Saadiye ay ku dhagan tahay ayaa ra'iisul wasaare Xamse wuxuu aad ugu gafay saacadii ugu dambeeyay Saalax iyo gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka Soomaaliya Saadiye Xaaji Samatar oo loo yaqaan Saadiye Firimbi aad buu ugu gafay waxayna isku dagaaleen guddi ayay isku dagaaleen Xamse Cabdi Barre wuxuu leeyahay mashruuc uu leeyahay wuxuu yiri kursigan jannadan ku gala haddana mashaariica u xiran marka Saalax iyo Saadiye oo isbahaysanaya ayaa waxay yiraahdeen mashruuca aad samaysay guddi ayaan dhisnay guddigaasi waa inaad feermaysaa oo macnaheedu la soconaya dhaqdhaqaaqa mashruucaasi aad samaysay haddii guddigaasi aadan feermayninna mashruucaasi ma soconaayo waxaan dowlad baa iska leh dowladana waa la wada leeyahay marka Saalax qoorsagaaru ku hayaa Xamse Cabdi Barre soo ma jeedid daraadna Xamse markuu ku maqnaa Mareykanka cidda taliya sulub xilka ka qaaday waa Saalax soo ma ogid marka sidaas awgeed meel xun bay isla gaareen Saalax iyo ma arkayse Saadiye oo dhinaca iyo ma arkayse Xamse Cabdi Barre Saadiyena waxay tiri haddaan kaaga dhabayn waayo macnaheedu waari koowow wiishkaba hay ugu yeero waa inaan kaa tuuraa mooshinkii hadda uu socdaa marka ma arkayse iyaguna sidaasi ayay isu haystaan bahasha cirkay isku shareertay meel xun bay gaadhay Xamse Cabdi Barre caradu carooday waxa weeye jirkiisi meel la saraadhiig kama imaado hadda aan kula hadlaayo bahasha ma arkayse nin walba godkiisi ayay biyo ugu soo galeen